siyaasiga Xuseen Khaliif Jaamac oo ka tirsan musharaxiinta ordaya inay ka mid noqdaan hoggaanka wadanka Soomaaliya ayaa maanta ka soo degay garoonka Aadan Cadde International Airport waxaana ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka Soomaaliya. Mas'uulku waxa uu sheegay in Soomaaliya imika hareysay musuqmaasuq aad u baahsan isla markaana u baahan tahay aqoon-yahan arrintaasi ka xadeeya. waxaana sidoo kale intaasi raaciyay in asagu u taagan yahay qabashada madaxtinimada dalka Soomaaliya isagoo sheegay in dalka hadii uu ku guuleysto madaxtinimada oo wax u qaban doono halkaas oo mar hore aan ugu imid shaqo haddana ma aha markii ugu horeysay markii saddexaad afraad miyaan ayaamahan dambe aan ku soo noqday Muqdisho caasimadda Soomaaliya marka ma aanan ahayn markii ugu horeysay waa mar waan ku soo noqday hadda Muqdisho ayaan ka dhoofay shaqo ayaan dibadda u gaaray dhowr dalal baan soo maray waana ku faraxsanahay inaan ku soo noqday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho maxay ujeedada Muqdisho maanta u soo galay waxa weeye ujeedada aan u soo galay Muqdisho waxa weeye sidaad la socotaan muddo dhowr bilood ka hor ayaan isu sharaxay jagada madaxweynaha Soomaaliya dadkii magaratay ugu horeeyay baan ahaa oo sharaxa in soo hadda sharaxaadu ay soo badatay taasna waa soo dhaweynaya wax mushkilada male dad badan ay sharaxaan Soomaali badan la arko dadka dhan waxay qaban karaan cid walba awoodiisa iyo wax qabadkiisa la arko ama gudaha dalka ha joogo ama dibadda ha joogo wax farqa in leeyahay aan u malaynayo marka waxaan ahay musharax u taagan in uu wax ka bedelo dalka talaabo ma garatay wax ku oolay iyo talaabooyin wax ku oolan ku soo kordhiya si dalka loo maamuliyo waa ogtiin dalkan waa dhaqaaqi waayay waa ragaaday waa ma garatay ruqa ayuu noqday dawladnimadii waa shaqan weeyay marka qaab cusub fakar cusub oo ma garatay khibrad caalamiye iyo maxalliye labadaba leh baan qabaanu inaan ku soo rogi karo ku soo dabaali kara dalka Cabdiraxmaan Cabdullaahi on Cable TV Muqdisho.